السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta barnaamijka waa barnaamij muhiim weyn. Saa ogtihiin maanta Soomaaliya si daraba haysta. Maanta Soomaaliya wax ka waxa weeye balaayo oo iimaanka la qaado weey oo hunguriga balaayo. Yaa meel walba waxa laga raadinayaa wax iska dhaxmaha. Waxa weeye nimankaas waxa ugu daran saa ogtihiin Xasan Sheikh. Yaa meel walba waxa weeye wax buu ka raadinayaa inuu shilan ka helo ama inuu jagada ama inuu arrinkan soo jagada u sii haysto. Yaa waxa la iska dhaxmaha ogtiin inuu khayraadka wadanka si firiya ku bixiyo lacag la'aan ku bixiyo hadana waxa weeye sida inta wajidaan oo article-kan xaqiijinayna ee Reuters soo saareen Mareykanka buu bariyaa oo dhaya kale imaada wadanka waxa doonta ka qaata yaa dhul baro dekado waxa la qaata yaa waxa soo sameynaya waxa weeye waxa jagada nusii haysto buro hadana sidoo kale rawaad qanan oo madaxweynaha Soomaaliland iyo nimankii kale oo isku cid ahaayeen oo asaga shaqada ugu horeeyeen هذه وحوي اعتراف بواش اعتراف برراس واش marka haweye wax walba waa ogolnahay اعتراف nasiibay ayaga sheekadu maraysa hadama anta ayaga Mareykanka ba gorgortamaya waxa soo xaqiijinay arintaas journal by Financial Times oo shalay ay soo xaqiijinay arintan waxaan ku jidaan haweye waxa lagu dhahay Soomaaliland haweye airborada iyo dekada bixinaysan haweye waxa soo xamaha baa wayder deal baa baahna baa soo wajidaan وهذا الديل وحاس أنت وحاس وحكوين بابا هنا بالله معنا لا ده حويه غير غزة بعدين كنا هنا أو بلا اعتراف المركز من السنين يا مركز أرنتاس بميز كل صار مركز أرنتاس فارين هذا سيريس سوي وهو يحب أنت هنا بعدنا مركز شلي ولدان أو بلايدا أو ضدك يليسي فهو وحي كأن سدان يعني غزة لنا لوريجيان يا ساسو حسوا حقيقة جوناثان وول ستريت جورنال ده يا waxaan qaasoo qaadanayna waa la wareeginaa ya dadka lahaana maxaa ku dhacay dadka lahaana waa la iska fogeynaya ya shirkad oo weyn oo consulting group consulting company oo waxa weeye shirkad oo lacag wax ku qaatan in ay la taliyaan shirkadaha weyn iyo dawladaha waa shirkadaas waa loo yeeray contract waxa loo siiyay inay plan u keenaan sidii reer Gaza loo rari lahaa oo Soomaaliya loogu soo daadan lahaa wax la iska dhaxmaa journalka sida journalka xaqiijinay wajidaan marka saas waxa xaqiijinay journalka Financial Times marka waxa weeye saas waxa la ku qaateen inay plan arintaas u soo keenaan marka Boston Consulting Group walahi shirkadda la dhahay iyo McKinsey walahi iyo Bain walahi waa nacalad weyn meesha ku aragtid magacooda hadda aragtid wax fiican kama soo baxo marka arintan waxa weeye tusinaysaa in wadanka Soomaaliya uu dhahayo arintaas halkaas ay xaq inay arintan dhab u dhacdoonto ya wax fiican halkaas u socon marka arintan waa digniin loo digayo dadweynaha Soomaaliya marka shirkadda Boston Consulting Group waxa uu yarteen oo lacag siiyeen niman maalqabeena oo maxaa la dhahay dawladan oo dhibka badan oo reer niman u dhashay weeye marka nimankii waa kuwana marka waxa weeye shirkaddan buu yeeran marka la plan waxa keentan bal dhahay sidii reer Gaza loo rari lahaa oo Soomaaliya loo geyn lahaa plan u keenay bal marka plankaas waxa kamid ah in reer Gaza lagu soo daadinayo Soomaaliya iyo Somaliland ya hadana waxa weeye waxay shirkadaas filaysaa in oo dadka reer Gaza ayaga iskooda ruuc gaariga in ayaga iskooda halkaas u tagayaan ya oo hadana ay soo laabanay weligoodba abadan hadana waxa wadamada oo reer Gaza ee qaata waxa loo qaybinayaa lacag gaaraysa 4 bilyan bar marka ninkan Xasan Sheikh iyo ninkan Eral dhahayo waxa weeye hunguri iyo traf waxa weeye waxa baarintas wadankii loogu tuuraya dhibaatadaas loo gelinaya ya halkaas waxa laga qayb qaadanaya in dad muslim oo dhibaataysan in la sii dhibaateeyo oo guriyahooda la dhaafiyo marka shirkaddan Boston Consulting Group dhaho waa nacalad dhashay waxa la iska dhaxmaha maraan fogeyn waxa weeye waxay wax ka dhiseen hay'adan waxa weeye waa Gaza Humanitarian Foundation baa waa hay'ad oo macaawino keenta laakiinse waa shirkad waxa weeye oo ay kontroolaan ciidanka Israa'iil oo lagu talagalay in lagu xasuuqo dadka reer Gaza marka macaawinooyinka Kenya waxa kamid ah cunto lagu soo daray daroogo si dadkaas looga dhigo wax oo bakhti ah oo weligood aan daroogo inay isticmaalaan maahan wax kale aan qabsan karin wala in laga dhigo wax la iska dhahay maaha hadana waxa weeye Gaza loo diiday in hay'adaha kale ay yimaadaan ay kaliya maahan dad kale ma imaanayaan marka hay'adaas waxa weeye waxa ka qayb qaateen shirkaddan la dhahayo Boston Consulting Group oo maanta gacanta kula jirta
arrimaha Soomaaliya yaa markii la soo ogaaday in ay shirkaddan Boston Consulting Group dahay inay wax ka soo dhiseen hay'addan oo naclada ah waxa weeye dadku xanaaqeen markay xanaaqeen waxa weeye raaligelin bay ka bixiyeen wajidaan waa joojinaynaa wax la iska dhahay ma article-kan bay soo waa lagu soo sheegay wajidaan yaa marka hay'addii ay wax ka dhiseen dad badan bay xasuuqeen oo masaakiin oo cunto soo safanaya oo dumar iyo carruur ay u badan yihiin way ku shish baranayaan markay ayaga iyo ciidanka oo waddankaas dhibka badan u dhashay iyo maxaa la dhahayay kuwa oo caloosha shaqaystayaal loo qaaday Mareykanka iyo Imaaraadka oo ay dadkii masaakiinta oo gaajada laysay oo meesha u safan badar inay helaan ay ku shish baranayaan marka 9 bishii hore United Nations sanad ku jiraan bishii hore United Nations waxay xaqiijiyeen in dadkii saas lagu laayay in 900 qof sii marayso marka hay'addan wax u dhisan tahay in dad lagu xasuuqo yaa marka cunto inay bixiyaan waxa loogu tagay dadka in la xasuuqo baa loogu tagay maxaa la rabaa marka dadkan haddii dhulka laga raro maxaa la rabaa wixii la rabaa waa kana iyo arrintan baa soo baxays wajidaan marka sanadkii wajidaan article-kan BBC baa ayaan hore soo qortay sanadkii hore yaa horeyna barnaamij hore u sameyneen oo uga sheekeen arrintan marka waa hore waxaa liis loo galay heerooyin laga soo rarayo Mareykanka iyo Yurub waxay liis u galeen dhulkii ay qaybsadaan reer Gaza marka reer Gaza markii laga daldalo halkaas oo Soomaaliya lagu soo daadiyo waxa weeye niman oo dad laga raray Yurub iyo Mareykanka waa dhulka loo qaybinaya marka sanadkii loo maqasheen baa maleenaya shir jiraayad Trump jeedinayay su'aalaas ka dhahayo wuxuu dhahay dadkan dib u soo laabanayaan yaa dhulka anaga qaadanayna buu waa kana safiiska dhahay The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it. haddana video oo bambeen oo soo sameeyay سنت وجدان ده وحوي بلانكيش حكمه إنه هوتيل هذا سفرت يا واقع هوتيل كيس وجدان سوق قاون مش فرينا كنا وكره حسن سوي كي كانوا بيبيع صاحبيهين هذا نوع بلان قاضي يبدأ كالكاس لجرره يبدأ بوصل لهذه أبدا يسوع كان صافي كذا يريس Do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. رمانته ذا الصومالية ويخ قاضيان إن ضد مسجنا كل قدر ضعفه يا ولا حسوقه يا إن كان حوي هنقول باو كيسي أصوات دوات جرة بحاران عنيد وصل شقتي إن كان اعتراف هذا بوحل دواتول بودن كي ضد كلوها وقلني يا مركا أرنتان ما كان هلا سقط صدق هذا ديدان سوما وسكر تستان هذا يقدر تهذا أما سيد الصومالي ترى سيد عفرت سنة سقطه لأن ما نوح درس لتي هنا ده أرنتان عارفين يا ما كان واضح أنا بعمل أنا في الصدق الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران في إطار الهدف نفسه الرامي لتمكين العدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة كلها، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه.